السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي ku xiran YouTube-kayga Zaciimka Media waxaan idin leeyahay kulan wacan oo wanaagsan inta barnaamijkeena bilowna waxaan ka codsanaa in ku soo xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam si aad adigana u qaato ajir anigana u helo ajir oo labadeena sida insha Allah ugu faa'iideysan markii xigta hadii boqoshada koowaad asoo boqoto YouTube channel-kayga Zaciimka Media waxaan ka codsanaa subscribe muuqaalkan la gareeyo hadduu ayran maanta waxaan idin wadaa sheeko yar oo aad u qosol badan oo dhex martay nin doctor ahaa iyo nin engineer ah qisada sheekada waxay ku bilaabanaysaa dhanka iyo engineerka wuxuu ahaa nin engineer ah oo aad u aqli badan shaqadiisana jecel waxaa dhacday in company uu shaqeynayay ay ku dhacday dhaqaale xumo iyo isdhac dhaqaale shaqadina ay burburtay kadib wuxuu raadiyay shaqooyin badan wuxuu u tagay shirkado badan oo shaqo ka raadsaday laakiin si nasb xumo uu heli waayay shaqadii uu asiga u raadinayay ama shaqo u qalanta asiga ninkan aqal badan oo ahaa kadib wuxuu go'aansaday in uu furto ama uu sameysto farmashi ama isbitaal farmashii furtay farmashihii ku furtay kadib wuxuu ku qoray boor kore halkan waxaa laga daweynayaa cudur walbo oo adiga ku hayo hadda waa cudur walbo ku hayo halkan ayaa laga daweynayaa wuxuu ku qoray farmashiye wuxuu sii raaciyay kaliya waxaa lagu daweynayaa $500 haddii aad ku caafimaad weyso waxaad helaysaa $1,000 سيفهم ويجي مسكها سفع فريا هدي هالكن الوجود دوين وايو أتكو عارف ما ذي سوق هتقاعدين الساعة $1 هدي أعرف ما دنا $500 عيد دي بيسا مالين كم ده معلمها وحاولت سوى مرة وحاولت سوى مرة دكتور وحون أركي بورك كو قرنا فرمشيا وأخرجي دكتوركي وحصل دينيو أكسيوك يعني كدافني هدي بكون دور الساعة يدرك وده كهيلسو فمشاكل عذر بين الشيء وأنجرن وقالي إنجيلك ساركين وعقود هاي إنجينيري أم التوري وحان واي ضدنك درينك ضدنك أنا ما كان عنتعنو وحبايب دمايا دوركي wuxuu ku dhahay okay wuxuu wacay kalkaalisadii wuxuu ku dhahay memberka tobanaad dawada ku jirto soo qaad inikan afka ugu dhibcay 3 jeer sidii ay sameysay kalkaalisadii dawadii soo qaaday markii hamar ugu dhibcisay afka أيوة تركها قيلي معقول ما محاوى فين كان شدار ما أنا داوي دي عمل إنجينير كيو قصلي وأقول هاي أوكي هادو قصلابتي أما قصلابتي درنك ها يكملنا وأنا عارف ماضي وأنا هو جمعي ديبتو عشان تبغى $1 شنتك لا يقاضي يسوي رادين يكون إنه حلو شنتي لا يقاضي شنتي ودي متي isagoo xanaaqsan wuxuu ballan ku qaaday ninkan inuu lacag ka soo ceshanayo uu soo baxay maalmo kadib uu soo laabtay come back uu soo laabtay wuxuu dhahay doctore injineerka ka wadaa waxaan waayay xasuustii way iga tagtay yani xasuus dhima leh doctorka wuxuu ku dhahay اوكي هدي تحصلت ويسو ان شاء الله هلكن وقع هذا سوال ودوينا توركي انجينيركي هو كالكالسدي wuxuu dhahay kalkaaliskaalay numberka 10 dawada ku jirto soo qaad markuu maqlabo doctorka wuxuu dhahay saamal numberka 10 kii dalad Soomaa oo shidaalkeed tiimadi u cilrabta انجينيركي aad u qosla ku dhahay okay alxamdulillah نعمد الله هذا واحد شيء
waxaa kusoo laabtay xasuustii kaa maqneed waxaa kugu waajibaa inay dhiibto $500 mar kale ayaa ninkii $500 laga distay isagoo raadinaya $1,000 inuu qaato saas wuxuu ku marayaa $1,000 $500 hore iyo tan wuu soo baxay ninkaa ma qusanayo maalmo ka bacdi haddana wuu soo laabtay wuxuu dhahay ditore yani ninka injineerka asiga ditore u yahay moogtaa wuxuu ku dhahay waxaa daciifay araggayga si fiican wax uma arko marka waxaa u baanahay dawo saas miya doorkii wuxuu dhahay aniga aragga daawo uma hayo marka lacagtii $1,000 ayaad qaadanaysaa maanta injineerka wuu faraxsan yahay sababtoo ninkan inuu ka guulaysto og yahay injineerka wuu baxay wuxuu soo qaaday $500 dictoorkii uu keenay gacanta ka saaray $500 dictoorkii markii gacanta laga saaray horuu ka xanaaqay $500 maxay tahay balantina waxay ahayd $1,000 $500 ay siinaysaa maxaa dhacay injineerkii wuxuu dhahay alxamdulilah ilaah mahad iskale kuu soo celiyey araggii maadaama aad aragga ka cawaadaysay lacagtan aad ku ogaatay inaad $500 tahay waxay tahay in argaaga kuu fiican yahay haddana waxaa laga rabaa $500 inaad dhiibto hadda nin arag daciifka ah lacag ma arkayo moogtaa marka sidii ayaa ninka loogu guulaystay $500 ayuu dhiibay mar dambena uma soo laaban xitaa waddadii xitaa ma soo marin injineerkii sidii ayuu lacagta ninkan $1,500 ugu qaatay ninkan isaga wuxuu raadinayay inuu helo $1,000 faa'iida laakiinse $1,500 ayaa isagii ka baxday disorka hadda qisada kulli aniga qosol bay igu dishay haddii adiga ka heshana waxaan kaa codsanaa subscribe muuqaalka janalka isaar muuqaalka la gareed duulayna siday nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku salaax xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ha iloobin si adigana ajir aad u hesho aniga